waxay ahayd xilli cabdikariim ku jiray ciyaar xamaasad iyo xiise badan leh. ciyaarta dhexdeeda wuxuu ahaa weeraryahan firfircoon oo daafaca kooxda ka soo horjeeda ku adkeeyay inay joojiyaan, laakiin si lama filaan ah jawigii farxadda iyo tartanka ayaa isku beddelay muruga iyo argagax kadib markii cabdikariim si kedisa uu dareemay xanuun xooggan oo wadnaha, taasoo keentay in si degdega loo joojiyay ciyaartii socotay. nasiib wanaag ma noqon wadnaqabad oo tiisii ma gelin, isla markiiba lama sii dhowran xaaladiisa ee waxaa si degdega loola soo cararay isbitaalka Soomaali Suudanes ee takhasusiga. tallaabadaasi degdega waxay ahayd mid uga qiimo badan cabdikariim wax walba adduunka yaalla, maadaama badbaadada noloshiisu ay ahayd mudnaanta koobaad. asxaabtii kubadda aan isla ciyaarayna mahada ka gaartay ayaa tiimkiiba soo qaaday, waxay keeneen Soomaali Suudanes Hospital. durbadiiba waxaa la isaaray kombiyuutarka wadnaha, waxaa kaloo meesha iigu yimid walaalkii oo asna dhakhtar ah. kombiyuutarka wadnaha markii la isaaray waxaa la ii sheegay inay xiran yihiin xidido ka tirsan xididihii dhiigga siinaya wadnaha. wax ka yar nus saac ayaa lagu go'aamiyey in cabdikariim sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyo habraaca furitaanka xididada wadnaha ee xiran, kuwaasoo si degdega loogu furay. And usually all the patients with this diabetic usually suspect to have an ischemic heart disease. They call us as a cardiac team. inta badan bukaanada qaba macaanka ee la kulma xanuunada wadnaha waxaa lagu arkaa xaalad hoos u dhigta socodka dhiigga ee wadnaha, taasoo keentay in wadnuhu waayo oksijiin ku filan si uu shaqadiisa u sii wato. kooxdeena xaaladaha degdega ee isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudanes ayaana soo wargelisay aniga iyo saaxiibkay Dr. Muctaz Abashar oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada wadnaha. markii aan qiimeynay bukaanka si degdeg ah ayaan u garanay in uu yahay kiis wadne oo halis ah, balse nasiib wanaag ku yimid waqtiga dahabiga ahaa, waqtigaas oo muhiim u ah badbaadada bukaanka. markasta oo bukaanka si degdeg ah u yimaado isbitaalka, fursadda guusha daweynta ayaa si weyn u kororta. laakiin haddii ay daahid timaado, wadnuhu wuu dhaawacmaa wuxuuna lumiyaa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqadiisa, taasoo sababi karta xaalad halis ah sida howlgalka wadnaha ama heart failure waxa loo yaqaano. So far, he accepted the procedure immediately. We took him to the cath lab and we started the procedure immediately. So far, now isla markiiba waxaan u bilownay habraaca daaweynta. Sida aad ka arki kartid halkan halbowlayaasha wadnaha. Kani waa halbowlaha midig ee wadnaha waana furan yahay. Dhiiguna si fiican ayuu u socdaa, wax xanibaad ahna ma jirto. haddana aan u gudubno dhinaca bidix. sida aad arkayso, kani waa halbowlaha bidix ee wadnaha. laanta labaad ee ka timaada halbowlaha weyn ee bidix ee wadnaha waa furan tahay, laakiin halkan waxaa ka muuqata inay xirmatay laanta hore ee halbowlaha bidix, taasoo ahayd meesha dhibtu ka dhalatay balse aan u furnay. halbowlahaas muhiimka ah dhiiggiisii caadi ayuu u gudbayaa, mana jirto xanibaad. natiijadu waxay ahayd mid guul ah. tallaabada daaweyntiisa ayaa ku dhacday si guul leh. waxuu hadda dareemayaa caafimaad iyo bogsasho wanaagsan, wuxuuna ka baxayaa isbitaalka isagoo caafimaad qaba, faraxsanna, isla markaana aad ugu mahadcelinaya dhakhaatiirta isbitaalka Soomaali Suudanes ee gargaarka u fidiyay xaaladiisa. waa mahadsantihiin Soomaali Suudanes, waa ku faraxsanahay hawsha ay qabteen, howlahaas oo loo aadi jiray dibadaha haddana noo loo keenay dalka. waa ku mahadsanyihiin Soomaali Suudanes.